بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan idin sheego saakay waxaanu nimid barlamaankii waxa dhammaan waayay nasaabkii ama intii uu ku furmi lahaa waana markii saddexaad baan u maleynayaa wiiga kan oo ay arintaas dhacday 125 bay ahayd maanta 123 weeye gudoomiyuhu wuxuu gaaray go'aan barlamaanka xeeroosaadkiisa in lagu shaqeeyo sidaa darteed xildhibaanadii maqnayd waxaa loo gudbiyay anshax guddiga anshaxa loo gudbiyay wixii xeeroosaadku sheegayo oo ciqaab ah ama casiraad mahaya casiraad ayaa lagu qaadi doonaa anigu waxaan la jiraa go'aanka guddoonka sababtu waxa weeye barlamaankan wuxuu wakiil ka yahay shacbiga Soomaaliyeed oo dhan 20 milyan buu wakiil ka yahay duruufta dalku marayo waad ogtihiin in shacbiga Soomaaliyeed mushahar laga qaato ama allowances laga qaato gunna laga qaato oo aan la soo xaadirin ninkii qofkii ku maqan xildhibaankii ku maqan shaqo ama cududaar ama fasax waa meeshiis wax soconaya maaha waxay noqonaysaa mas'uuliyaddii loo idmaday barlamaankan inuusan ka bixin bay noqonaysaa waxa weeye yaa waacid cid nafsak baa la yiraahdaa carab tiraahda ninka wax wacdinayo horta naftaada wacdi barlamaanku shaqadiisa hadduu ka bixi waayo asaga dambiilaan cidda marka annagu saaka 9 subaxnimo markay ahayd 3 saac subaxnimo aanu nimid haddana waa 5 saac 2 saac baan fadhinay waxaan qabanay male xildhibaanada yimid waa ku mahadsan yihiin waxaan idin sheegayaa anuu guddi anshaxna kuma jiro xeer nidaami qoladan maxaa la yiraahdaa barlamaanka nidaamiyana kuma jiro xildhibaan caadi aan ahay guddiga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga ku jira laakiin arrintan waxaan uga hadlayaa ka xildhibaan mas'uuliyadeedu waxa weeye xaaladda tan dalku marayo inaanu nimaadno maalin kasta oo ku nimaadno tiro buuxda oo go'aamada iyo hawsha dalka ka qayb qaadano oo haddii alla ku ron yahay shuruucda aan saxino oo dawladda aan la xisaabtano dabagallo iyo hay'adaha kale haddii inta la sameyn waayo waxaanu baaqsanay wixii aanu ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadnay oo ay noo idmatay sida awgeed waxaan ku raacsanahay